dhab TV axmed yaasiin inta kadib toddobaadadan waxay dhab TV si weyn isugu mashquulisay inay wax ka ogaato baahida biyaha iyo heerka ay gaarsiin tahay guud ahaan 11 gobol ee deegaanka Soomaalidu ka kooban yahay iyo 93 degmo dhab TV waxay samaysay wareysiyo iyo baaritaano kala gedisan iyadoo isticmaalaysa sooska ama tools fara badan oo ay kamid tahay in ay dadka wareysiyo kala gedisan la yeelato sidoo kale inay maamulada meelaha ka jira iyo sidoo kale dad saxaafadda madaxa bannaan ama dad ka madax bannaan arrimahan oo daneeya biyaha deegaanka Soomaalida ay ogaato axmed waxaan soo ogaanay deegaanka Soomaalida inay biyuhu yihiin mashaqada ugu weyn ama baahida ugu weyn ee deegaankeena Soomaalida marka hadayna number 1 inay tahay sidaa darteed waxaan rabaa intaa ka hor inaan cadeeyo intii ay dhab TV ku jirtay xog ururinta iyo hawlaha baarida heerka biyuhu ay gaarsiin yihiin inaan ogaanay wasiirka hadda xilka hayo inagana maanta martiino ah in ay dadku bogaadiyeen dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka uu muujiyay intii uu xafiiska joogay taa macnaheedu laakiin kama dhigna baahida marka la barbar dhigo in ay wax xun kamid ah baahidii ay qayb inay soo dhadhaweysay xataa kama dhigna dhowr siyaalood ayaa ama category ayaan gelinay baaridan iyo xog ururintan marka koobaad waxaan nidhi heerka biyaha imisa percentage ayaa deegaanka Soomaalida bulshada ku nool 11 gobol 93 degmo ayay gaarsiin tahay haddana waxaan gelinay yaa biyo hela waxaan kasii dambaysiinay yaa hela biyo nadiif ah waxaan sii kala saaray oo sii ogaanay oo aan xogo badan ka ururnay dadka rural area ama meelaha reer guraaga ku nool baahidooda biyo iyo sidoo kale urbanizationka ama dadka magaalooyinka ku nool aan ku bilowna si kooban si aynu ogaano warbixinteenu meelaha ay maanta caga dhigan doonto magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ayaan ka bilaabaynaa oo caasimadda deegaanka Soomaalida ah oo madaxtooyadu degan tahay iyo xafiisyada adeega bixiyo oo mudane Xasan Maxamed Xuseen xafiiskiisu uu kamid yahay ku yaalo waxaa runtii aan soo ogaanay inay magaalada Jigjiga biyo la'aan tahay guud ahaanba marka laga yimaado biyo dhaamis oo ay dadku ku tiirsan yihiin booyado iyo gaawaarida lagu labada taayir lagu cayriyo oo la saaro foostooyinka wixii detailisa waynu u soo noqon doonaa iyo dhaliilaha kul hoganaya laakiin magaalada Jigjiga waxa soo ogaanay inay jirto raja ah in la gelin doono wasiirka ayaa noo sheegi doona ee biyo gelin dhameystiran inkasta oo rajadani ay dadka qayb kamid ah wali ay ka walwal qabaan inay noqon doonto riyooyinkii xiliyadii hore oo kale mise waxay noqon doontaa mid rumowda taa wasiirka ayaa noo faahfaahin doona laakiin waxaan ogaanay in magaalada caasimadda ah ee Jigjiga xataa ay biyaha heerka halka booyad ay qiimo qaali ah ku marayso xagga galbeed ayaan ka aadaynaa magaalada Jigjiga axmed yaasiinow gobolka City Liibaan Daawa Erar ayaa dhinaca galbeed kaga laran magaalada Jigjiga waxaan soo ogaanay dhammaan gobolada degmooyin fara badan oo kamid ah inay biyo la'aantu tahay topiga issue ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan hase ahaatee meelaha sii daran ayaan briefkeena ama warbixinteena kooban aan isku dutaagaynaa gobolka Daawa ayaan ogaanay in mashaqada number 1 ka taagan yahay dhinaca markaan aadno dhinaca bari ayaynu axmed yaasiin ka aadaynaa magaalada Jigjiga magaalada ugu dhow waa magaalada Dhagaxbuur isku daya fara badan ayay intii isbedelku jiray xukuumaddu samaysay iyo xataa kuwii ka horreeyay laakiin wali laguma guusaysanin in caasimadda gobolka Jarar Dhagaxbuur biyo gelin dhameystiran laga hirgeliyo hase ahaatee sida Jigjiga oo kale ayay iyaga laftigoodu ay noo sheegeen shacabku in ay rajo sugayaan walow ay marar badan arrimaha rajada shacabku ay ka dayriyaan oo ay dhahaan rajooyin badan oo in badan raagay laftigoodu wali sidii loo baahnaa inay hirgelin waan ka soconayna axmed yaasiin oo gobolka Wardheer gobolka Doolo Qoraxay iyo ilaa waan isu maraynaa ilaa Goday maadaama oo inta badan warbixinteena iyo wareysiga maanta uu biyaha du taagan yahay wixii details iyo informationada ama xogaha ay hayso dhab TV waxaan u deenaynaa qaybaha dambe oo wasiirka warbixintiisa iyo xogiisa ayaan ka dambaysiinaynaa laakiin dhinacana waxaan soo ogaanay in ay jiraan gobolka Doolo oo kale magaalada Wardheer biyo gelin xaafadaha qayb kamid ah laakiin degmooyinka ku hareeraysan kuwa biyo way ka jiraan kuwana sidoo kale biyo la'aan fara badan ayaa ka jirta laakiin dhinacan haddaan aadno gobolka Afdheer ayaad moodaa isaga in guud ahaan ba la iloobayba markaan soo ogaanay oo biyaha uu ku tiirsan yahay kaliya ay tahay tuubo laga soo geliyo webiga oo aan xataa nadiif ahayn tuubadaasi waa seasonal ama waa xilli bay ku xidhan tahay xilliga uu webigu shaqaynayo kaliya ay tuubadaas shaqaynaysaa inta ka dambaysa haddii webigu uu qalalo ama ay abaara dhacaan dadka biyo la'aan ayaa wajahayaan axmed yaasiin marka wixii detailisa ama meelaha goobaha ay mashaqadu ka jirto warbixinta dambe ayaynu u dib dhigan doonaa haddana markaynu hoos soo degno waxaan soo ogaatay dhab TV xogaheeda biyaha hela markaan soo ogaanay biyaha nadiifta ah ama biyaha value-oodu uu ka koreeyo
6 ama neutralkooda uu noqon kara 7 meelaha marka halbeega biyaha bini'aadanka rasmiga oo lagu cabirayo in ay aad u hooseyso oo biyaha qualitygooda deegaanka guud ahaan inta biyaha heshaana ay tayada biyuhu aad u hooseyso sidaa darteed goobaha biyuhu ka jiraan laftirkeeda biyo cusba iyo biyo ay ku badan tahay khataraha wajihi kara caafimaadka bini'aadanka ayaa ka mid ah meelaha qaar intaa wixii ka dambaysa warbixinta iyo su'aalaha ayaan u dib dhigan doonaa xafiiskeenna ama stuudiyaheena Orawa Axmed Yaasiin waad mahadsan tahay Mukhtaar waxaan rabaa hadda inaan wasiirka siiyo dhowr daqiiqo oo furitaan ah oo uu dul marayo waxqabadkiisa ilaa 5 daqiiqo sida Mukhtaar oo kaleeta kadibna waxaan geli doonaa su'aalaha uu noo bilaabi doono walaalkeen Cabdifataax wasiir ku soo dhawo mar kale بسم الله الرحمن الرحيم دبتي في عدد ما تنتهين مختار بس ياد بو ما تنهي هاي كل وحو سو ururiyay intii taagiisa ahayd wixii xog ahay oo heli karay ee la xiriira guud ahaan biyaha deegaanka Soomaalida wuxuu ka tagay ku daray haddaan anigu haddii aan bilaabo xogta deegaanka Soomaalida dhinaca biyaha ah qaybaha qaarkood ka fogaan maayo baahida koobaad ee deegaanka Soomaalida waa biyo waa xaqiiqadaas صح lagamana wareegayo had iyo jeer aan TV-yada ka sheegnaa maxsharada waaweyn baan ka sheegnaa baahi weyn buu deegaanka Soomaalidu biyo u qabaa because of what hawayaan deegaanka Soomaalidu nature-kiisa ama yani qaab samayskiisu waa qaab qallalan weeyaan oo badankiisa aan laga helin biyaha dhulka hoostiisa saadarteed waxaa dhib keenaysa badanaa in biyo la helo oo dadkii biyo loo soo saaraba goobo badan bay dhib ka imanayaan haddii la helo xitaa ceelasha waxa loogu tagayaa 500 600 700 baa loogu tagayaa badankooda marka inaad technology-gii lagu soo saarayay iyo riigagii waxaan qodayay iyo qalabayntii miisaaniyad aad u badan bay qaadanaysaa marka mid iyadii bal nature-ka uu yahay dhulkeenu u samaysan yahay lafteedu waxay ka qayb qaadanaysaa dhibaatada biyo la'aanta ka qayb qaadanaysaa arinta labaad iyaduna waxa weeyaan waa arinta la xidhiidha climate change-ga ama xaaladda cimilada deegaankeenu iyadoo caalamkaba wax fara badan oo qulubaagadii ka jiro haddana way ka sii daran tahay xilliyada qaarkood waxaa dhacaya abaare istaba joog oo adag baa dhacaya xilliyada qaarkoodna roobab waaweyn oo fatahaada keenaya goobihii la biyogeliyay ama dhibaato yani xal baad ka gaadhay aad istiraahdo meelaha qaarkood sida wabiyada jiinkoodii iyo meelaha tooga infrastructure-kii jiray bay markaaba cagta marinayaan waxaa dhici karta marna abaar aad u daran oo waxyeelo badan keenta ka dhacaysa mararka qaarkoodna fatahaado aad u sareeya ka dhacaya meelaha una fatahaaduhu ka dhici jirin oodan is oran karaynin ba dad yani roob badan baa ka di'i jiray ama daadad baa ka dhacaya sida gunagalo oo kale dhulkii ahaa jiray weligeed fatahaad laguma sheegin sanadka fatahaad baa ka dhacday ari iyo dad buu qaaday roobkii uu qaaday reer degan ayuu daadku qaaday marka waxaad garanaysaa isbedelka cimiladu saameyn adag inuu ku leeyahay deegaanka Soomaalida taasina waxay keenaysaa wax fara badan oo xagga biyo la'aanta ka qayb qaadanaysa arinta saddexaad ee iyada lafteedu biyo la'aanta iyo dhibka keenaysa waxa weeyaan hadda ka hor dawladihii hore u sii jiray ma ayna siinin tixgelin fara badan xagga investmentiga iyo maalgelinta xagga biyaha xoog lama saarin marka taa ka hadlayna waxa weeyaan timekii tusaale ahaan 27 sano ahaa ee EBRDF ay wadanka ka talinaysay wax biyogelinahoo tabar leh oo la taaban karayo ama ceelal aad u badan oo inta dhulkii lagu baahiyay miyiga iyo oo manaha laga qoday way yar yihiin time ka loo fiiriyo waqtiga ay dawladdaasi jirtay ka hor mingisti iyo xaylasilaasan markaad fiirisana dadkeenu waxay ahaayeen dad aad uga go'an dawladda iyada ah gobolkeenuna wuxuu iska ahaa war zone buu iska ahaa ama gobol meel dagaalun buu iska ahaa xilligii yani maxaan ku rahaa 27 sano EBRDF-na sidoo kale wuxuu goob dagaalun buu ahaa saadarteed investmenti xoogan oo la geliyay ama tixgelin gaar ah looma samaynin xagga biyaha saadarteed waxaa jiraysay oo kaliya xilligii EBRDF-ta in miisaaniyad la qabto aan la gelinin biyaha iyo adeegyada la gelinin dadka Soomaalida ama bulshada Soomaalidana la hafro oo la yiraahdo adeeg baa loo sameeyay
water coverage-ka jira ama biyaha heer daboolka biyaha jirana laga been sheego waxaan anagu ugu nimid isbedelkii 5 sano ka hor iyada oo la leeyahay oo report official ay ku qoran tahay meel walbana laga sheegayo boqolkiiba 80 baa la gaadhay biyaha nadiifta ah ee iyo magaalo la leeyahay reportiga hadda uu ila yaalaa laga soo jeediyay shirkii weynaa ee har xisbigu ku qabtay raasa uu ku qabtay laga soo jeediyay hal habeen baa waxa lagu bedelay ceelashii 400 marayay baa 820 laga dhigay oo aroortii la report gareeyay 820 ceel baa la qoday baa la report gareeyay muddo 10 sano gudahooda oo 2000 ka bilaabatay ilaa 2010 ka taariikhda Gregorian calendar-ka yaa waxa la qoday baa la leeyahay ceelal 805 ceel ah 15 ceel u baana kaba horeysay baa la leeyahay wixii 10 ka sano ka horeysay reportigu saas uu sheegaya coverage-kuna 80 buu tilmaamaya waxaa dhacday markaa xilligii isbedelka in wadanka dhan ba waxa la sameeyay wash national inventory baa la sameeyay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda biyaha federaalka oo wasaaradaha deegaanada adeegsanaysa ama kaashanaysa yaa waxay ka sameeyeen inay tira koobaan ila biyoodyada iyo waxa ka jira adeegay xagga biyaha deegaanada gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaa soo baxday water coverage-ka jira ama heer daboolka biyaha ee miyiga iyo magaalada mid walba numberka uu yahay baa la xaqiijiyay heer federaal iyo heer deegaan isla xaqiijiyay halkii 80 laga sheegayay water coverage-ka ama heer daboolka magaaladu wuxuu noqday boqolkiiba 20 buu noqday percent buu noqday miyiguna wuxuu noqday boqolkiiba 18 buu noqday marka la celceliyana boqolkiiba 19 ayuu noqonayaa coverage waa 2011 taariikhda dalka Ethiopia waxa dhacday markaas dawladdu markay aragtay deegaanka Soomaalida xaaladda ay ku sugan tahay arintan iyadii ama adeegan uu ku sugan yahay qorshayaal iyo siyaasado ayaa la qaatay waxa la isku dayay marka in qorshe loo sameeyo miisaaniyad loo allocate gareeyo magaalooyinka iyo meelaha dadka badankoodu ay ku nool yihiin in miisaaniyad loo diyaariyo si biyo gelin loogu sameeyo waxa kaloo la diyaariyay meelaha oo manaha ah ee miyiga ah in ceelal dhaadheer laga qodo si biyaha maxaan ku raday baahida biyaha wax looga ka fargareeyo sidoo kale goobaha aan lahayn underground water aan lahayn ama biyo dhulka hoostiisa aan lahayn waxaa la qorsheeyay in laga sameeyo daamam irtidaam iyo hafirdamis in laga sameeyo la qorsheeyay oo miisaaniyad loo qabtay sanadihii hadda inaga tagay waxa kaloo jira iyada sidoo kale water supply si aan dadku ayna ugu dhicin wax la yiraahdo maxaan ku raahday cost fara badan oo xagga fuelka in solarization la sameeyo oo xagga solarka iyo cadeeda la isticmaalo gridka ama laydhka 24 saacana la soo geliyo meeluhu ku dhow yahay dadaalla laga sameeyay iyaga laftooda goobaha miyiga wixii suuragal ah biyo gelina laga sameeyay haddaan markaa number soo qaato 5 sano ee hadda tagtay ilaa 13 magaalo ayaa la biyo geliyay biyo gelintu mid walba heer ay tahayba iyada oo miisaaniyadda deegaanka iyo hantida iyo resource-ga ay deegaanku uu gacanta ku hayay uu limited yahay aad u xadidan yahay oo adeegyadii kale ee kala duwanaa iyo hawlihii amniga iyo hawlihii kale ee dawladda wadideeduna meesha yaallo miisaaniyadda yar ee taala in la sameeyo biyo gelin ama priority-ga la siiya la isku day saadartii 13 magaalo ayaa la biyo geliyay ilaa 13 dhaamba 6 dhaamna la maxaan ku dayactiray oo la balaadhiyay 7 dhaamna la sameeyay oo si cusub loo sameeyay waxa kaloo la sameeyay biyo gelinaha miyiga qabalayada miyiga ilaa 7 ilaa 9 goobood baa la sameeyay waxa kaloo la sameeyay ilaa 250 iyo 1 ceel baa la qoday sidaan liistiga idinku siiyay waxana weeyaa 5 sano ee tagtay iyo rubucan laftiisa oo 15 ceel lagu daray intii hore marka 250 ceel baa la qoday oo ceelasha dhaadheera waxaa kaloo la isku dayay in xirfadlayaashii xafiiska biyaha heer deegaan branchiyada gobolada ku yaala multi village projectska wakaaladii ka howlgelayay kuwii magaalooyinka ka howlgelayay
in tayadoodii iyo capacity building loo sameeyo wax laga bedelo waxaana muhiimadda ugu weyn ee la qaatay ama istaraatiijiyadda weyn ee la qaatay ay ahayd markii hore waxa lagu socday qaab indhali dhagaala'aana lagu socday markii biyogelinta la samaynayo sidaa darteed go'aan waxaa la qaatay mashruuc aan la soo daraasaynin designna aan loo samaynin iyo naqshad dhammaystiran inaan la biyogelinin ama aan la bilaabin baa la go'aansaday waxaan hadda lagu socdaa nidaam cilmiyeysan oo ah in haddii ceel la qodayana la daraaseeyo haddii maxaan ku rahdaayay biyogelin la samaynayana la daraaseeyo designkiisii oo dhammaystiranna la sameeya mid walba ayaa lagu socdaa halka markii hore ay ka ahayd uun qabo oo geli ay ka ahayd waa sax wey su'aali qaybtii su'aalaha rabna inaan galno hadda kafareejka biyaha waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhammaystiro adeegyada noocaasa markii la qabtay waxaa isbedelay kafareejka kor u kacay coverage kor u kacay markaa wuxuu gaadhay miyiga wuxuu gaadhay 42% ayuu gaadhay waxaan ka qaadnay 18% magaalooyinkana waxaan ka qaadnay 20% waxaanan gaarsiinay 48% baa gaarsiinay waa biyaha nadiifta ah helidooda weeyaan ee deegaanka marka halkaasa markaa uu ka yimid farqiga iyo isbedelka uu ka yimid صح سو marka isbedelka ayaan rabnaa su'aalo badan inaan ka weydiino waxaan rabaa Cabdi Fataax inaan ku soo dhaweeyo Cabdi Fataax